نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. waxaa laga yaabaa casrigan aynu joogno qadiyadda xukunka iyo maamulka maadaamuu noqday wax dee manfacad gaara dadku imika ay ka doonayaan oo ay yar tahay inta dadka loo danaynaya aanay badnaynay yarta ilaa kambaynkaa taa muujinaya qofka dadka u danaynaya dadka riixi lahaa laakiin inuu isagiiyo cidda la socotaa danaysanayaan dee orodka ah iyo qaylada ayaa daliilo ah sidaa daraaddeed casrigan waxay noqotay waxaan la isu quurin laakiin la isku ciiriyo bal aynu se u noqonno cusuurtii qiimaha badnaa iyo dadkii tusaalaha inoo ahaa sidii lagu dooran jiray ee tanaasida cunnadoo kale cun iyo cun ay u ahayd nebi maxamed markuu dhintay calayhi salaatu wasalaam dadku way wada argagaxeen waa la wada naxay waa rasuulkii ummadda waa hoggaamiyahooda waa mucallinkoodii dhinac walba markuu meesha ka baxay naxdin baa dhacday waa la kala fadhiistay aalu baydkiisii qayb ka mida waxay fadhiisteen guriga faadimo abubakar iyo cumar iyo meel kaley fadhiisteen ansaartii caasimadda madiine joogay meel kaley fadhiisteen waxaa la isweydiinayaa maxaynu yaallaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uma sii cayimin cidda ay madaxweyne u noqonayaan laakiin waxyaabaha dadka lagu imtileeyey lagu imtixaanay iyo hawlaha u yaallay ayay ka mid tahay arrintan qiyaadada iyo hoggaaminta ee lagu imtixaanayo imtixaanaadkay marayaan bay ka mid tahay in loo daayay arrintaa oo culayskeeda haddana leh markaynu ku soo dhowaana arrinteennan farriimahaynu diraynaa waxa weeye adigaas oo arkee dee buuqii soo dhammaa dhegaheennu ka sii qaylinaya walqow fiihi baa ka dhacday ku buuqa kaambaynka waxaa la yidhahdaa kadeedunbuu isu rogay waxaananu leenahay ilaahay dembi dhaaf ka weyddiista dadkii waxaan ka qayb galay iyo madaxda soo abaabushayba intee habla yaryar gurigoodii ka baxay intee fitnoobaysa intee dad bukaana dhibaato la gaadhsiiyey istikfaar bay arrintani mudantay nooceeba baa ka soo baxay waxaa kaley mudantay in dib loogu noqdo xeerkii laga qortayoo dee waxaan la xamili kari maayee kaambaynka lagu sheegaya dib loo soco fariintaynu diraynaa waxa weeye xaaladdu markay halkanoo kale marayso dadka wax lagu aaminay inay ammaanadooda gutaan dadka u dhexdhaa xagga amniga iyo ilaalinta inay xaqooda gutaan oo dadkii aanay u kala eexanin wixii lagu heshiiyey aan la isku weydaanin ila nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna calaa shuruudi dadka muslimiintii waxay ku soconayaan shuruudday dhigteen mar haddaanay sharciga khilaafsanayn sidaa daraaddeed in amniga la ilaaliyo iyadoon cid gaar ah la dheefinayn dadka gacanta wax loo geliya u xaqsoorayaana inay iyaguna hadday guddi tahay iyo hadday maxkamad tahayba inay iyaguna sida xaqiiqada ah waafaqaanoo waxba aanay qalloocinin intaa waxaa sii weheliya dadka markaa iyaguna tartamayeyna waxa ay ku heshiiyeen inay ku socdaan oo xeerkii iyo nidaamkii ay dhigteen iyo ciddii wax loo dhiibtay qaraaraadkay soo saaraan inay iyaguna aqbalaan tawaajibka ku ahay waa taa ilaa nebigu wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu waxay ka duulayaan oo ay ku soconayaan shuruuddooda waxaynu intaasii raacin lahay haddii ay dhacdabo wax qalloocdaan marnaba xalaal u noqon mayso dadka wax tabanaya inay dhiigga muslimka iyo dagaal iyo fitno ridaan iyagoo waxbaana laga qaaday ku xalaashanaya taasina waa mid aynu sii fatwoonayno oo aynu sii sheegayno waa dhiigga muslimka laguma xalaashado xuduud baa la gaadhayaa siyaasad baa la fulinayaa inta lagu xalaashanaya wuu cayimayba nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka walaalaha muslimiinta ah iyagaa garab iyo gaasaan isu ah saamaxaadda aynu sheegaynay bay ku soconayaan marka waxbaa iga qalloocday waxbaa iga naaftay marnaba fitna laguma ridi karo qofka taa ka horseedana ilaahay hortiisa iyo ummadda horteedaba dee taariikh xumu ku gelayaa waxaanaynu leenahay midhkaynu ka duulaynaa waa taa aynu soo sheegnay akhlaaqda wanaagsani waxa weeye cun iyo tanaasulka qofku taariikhda ayuu ku gelayaa tanaasulka laakiin fitnada iyo fawdada iyo fasaadka kuma gelayo aad waxaynu isaga ilaalin doonnaa cadiihow ku cunay ama ku ciideey arrintaa hoosta ka calaamadiya ama waa inaan wixii helaa ama waa inay kala daadataa taasi waynu iska ilaalinaynaa dhaqanka shayddaanka iyo shisheeyaha weeye dhaqanka dadka muslimiinta ma aha waxaanaan runtii dareemayaa dadka in aad loo cabbeeyeyoo qolo waliba ay iska ilooween shaygii la odhan jiray inshaa allaahudii layna amray dee lamaba odhanayninba innagaa helayna hebel baa soo baxaya
markuu soo baxa saasay noqonaysaa dadkii waxaa lagu akhriyeen insha allaahuna la odhan haddaynu hellana la odhanin dee waa laydinka helayd way ku adkaanaysaaye balaayo ninkii kiciyey baa dejiyee sidhinka dadka ku dallacdeen sidaa uga dejinaysaan idinkaa yaqaana marka farriimahaasaynu diraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa wixii fitnaana inuu inaga joojiyo wanaaggana uu inagu ilhaamiyo iyo sawaabka iyo deganaanshaha innaga iyo dadka muslimiinta ah في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب